Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabteeda channelkayga Nasra Carfaaye Cooking Channel. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay subscribe saaro gambaleelka furo si aad ula socotid cashir walba aan soo gelino una sii share garee asxaabtaada insha Allah. Bismillah. Kusoo dhawaada muuqaal kale oo cusub. maanta waxaa baranaynaa sida ugu fudud oo loo sameeyo sawaayad iyo maraqeeda qada dhameystiran insha Allah. meeshaan waxaa ku haystaa hal qaando oo cusbe ah, qaandada halfkeed oo cusbe ah. waxaan ku soo cabirtay qaandadan cusbe shiidan hadii ay haysatid ku darso, hadaad haysanin tumo. meeshaan waxaa kale ku haystaa hal qaando oo aad aan u buuxin oo leebata ah ama fixiso ama qamiirso. meeshaan waxaa kale ku haystaa 3 qaando oo sokor ah, isla qaandada leebatada ku soo cabiray. meeshaan waxaa kale ku haystaa hal xabo oo ukun ah sidoo kale meeshaan waxaa kale ku haystaa 3 qaando oo subag ah, subag sixin saafi ah waaye. hadaa subag nacab tahay saliida caadiga cuntada ku darsano ku bedelo. sidoo kale meeshaan waxaa ku haystaa hal galaas oo caano qandac ah. caanaha marka hore ku wada shubin, tartiib ugu soo darso si sawaayadaada ay ku noqoto sawaayad oo jilcan. meeshaan waxaa ku haystaa 3 koob oo bur ah, waana koobka shaaha lagu cabo 3diis ah. hadda waxaa bilaabaneynaa qasitaankeena. sawaayada marka hore waxaa fiican inaad cajiinka si fiican u xashtid si ay isku dhex gasho. waxyaabaha oo laga sameynayo cajiinka waxaa fiican inaad si fiican u xashtid si hadhow ay kugu noqoto wax qurux badan. waxaa sameynaya cajiinka si fiican isaga xash. markaad sidaas isku dhex gelisid baaquliga sameynaya xasaarada miiska si fiican isku dhex geli sawaayada si hadhow ay kugu soo baxo sawaayad qurux badan oo jilicsan. dhex geli si fiican. meesha hadii inaad ka qabsanayso aragtid waxaa gacmaha marsanaysaa saliid amba wixii markaas marka hore ku qastay, kadib si fiican isku dhex geli. ana soo kooba maro muuqaalka inuu nagu dheeraado. hadda sawaayadeena waa diyaar. baaquliga asaaraysid sameyna waxyar saliida marina si hadhow kaaga qabsani. markay sidaan diyaar kuugu tahay sawaayada waxaa sugaysaa muxuu ahaa sheeg 30 daqiiqo ugu badnaan. sawaayadeena intay noogu soo qamiirayso waxaa sii diyaarsaneynaa maraqii lagu cuni. bismillah. hadartan waxaa sameysaneynaa maraqeena lagu cuni lahaa sawaayada. marka hore waxaa kusoo shubay wax yar oo saliida hadda way ii kululaatay. waxaa ku darsanaa basasha xoogaa yar ku shiil. basasha cuntada way macaaneysaa. xoogaa yar markaa ku shiishid basasha oo soo yeelato kalarka oo brown ka camal, kadib waa kusoo darsan doonaa waxyaabihiina wixii insha Allah.
diyaar noo tahay. Waxaan ku darsan doonaa hilibkeena. hilibka iyo basasha iyo saliid isdhexgeli, kadibna daboolkiisa saaraysaa ilaa iyo hilibka iyo basashii iska dhexgalayaan. hilibka hadda mara wax biyo inaa ku daro, hilibka isagaa biyo dhalaayo. kadib waa ku darsan doonaa waxyaabihii aan ugu talagalnay. 4 daqiiqo kadib hilibkii waa ku soo laabtay. ilaa hadda wax biyo kumaan darin. basasha sida ogna iyada biyo dhalaaso, hilibkana biyo dhalaa. hadda marka waxaa ku darsanaa 2 galaas oo biyo ah soo hilibka iigu bislaado. dabka aad ku sameynaysidna dab dhexdhexaad ha ku ahaado. 15 daqiiqo kadib waxaa ku soo laabanay hilibkeena. hadda marka waxaa ku darsanaynaa 2 galaas biyo soo dhameystay. hadda marka waxaa ku darsanaynaa waxyaabihii kale ugu talagalnay. tan waa 1 xabo baradho aan soo jarjaray. waxaan soo jarjaray sidaan maraba hadhow inay iga jajabto marabo. 1 xabo baradho ah. meeshaan kale waxaa ku haystaa 1 xabo karooto weyn ah oo ayadana sidaas u soo jarjaray. intaana iska gelinay marka hore. waxaa kaloo meeshaan ku haystaa tan waa maraq digaag qudaarta ka samaysan. haddii aad rabin waa iska dhaafi kartaa, cusbo ku bedelo. tan intaan waa xawaajiyaal aan isku dardaray. kan waa filfil shiidan. kan waa toon iyo kabsar caleen aan soo tumay. intaana isku walaaqaynaa. aan qaandada dhex martay kadibna waa isku buurinay ilaa iyo 1 daqiiqo. kadib waxaa ku soo noqona maraqeena. saliidii iyo cadkiskii iyo hilibkii intay aan isku buurin sidan ay soo baxay. haddana waxaa ku dareynaa 1 galaas oo biyo caadi ah si baradhada ay ugu bislaato. waa isku soo laabanayna insha Allah ilaa baradhada ay ka bislaanayso. haddana waxaa ku soo laabanay maraqeena. hadda diyaar uu noo yahay. waxaa ku darsanaynaa waa barbarooni iyo basal aan soo jarjaray. geli barbarooniga iyo basasha la rabo inay bislaadaan. hadda maraqeena sidaan oo noogu diyaarsan yahay. haddana waxaa ka daminaynaa. haddana waxaa ku soo noqonay 30 daqiiqo kadib sawaayadeena. waa ujeedaa sida ay noogu soo khamiirtay. waxyar waxaa ku celcelinaynaa khamiirka. haddana waxaa fidsanaynaa sawaayadeena. bur iskaga shub meesha si ay kaaga dhegdhegin, si cajiinka kaaga dhegdhegin insha Allah. saddexdii koob oo bur ahayd waxaa ka dhigay 60 kuus oo sawaayad ah. haddana waxaa fidsanaynaa xabadeena koowaad. waxaa idin tusinaa 2 ilaa iyo 3 kadibna
saasoo kusoo dhameysan doonaa insha allah si muuqaalka u noqdo muuqaal kooban. markaa fidinaysto si isla eg si hadhow sawaayadaada kugu soo baxa sawaayad qurux badan. haddana waxaan fidsanaynaa xabadkeeni labaad. waxaa fidinaysaa qaab isla eg si sawaayadaada ay kugu soo baxdo sawaayad qurux badan. haddana taawadeena way noo soo kululaatay, waxaan saaranaynaa sawaayadeena. dabkan dhexdhexaad iskaga dhig, wax yaroo saliida korka uga shub. ku warwareeji si sawaayada iskaga si sawaayada u soo guduudato qaybta hoose. qaybta hoose way nooga soo bislaatay sida ujeedaan. haddana waxaa u gidiyay qaybta kor jirtay. ku celceli si aysan kor ugu soo kicin ee uga bislaato qaybtii hoose. xusuusnoo dabkana ha ahaado dab hooseeya si cajiinka isaga dhan uu kaaga bislaa. dabka haddii aad dheereysid uu kaa gubanaa kor, dhexdana ceeriin uu ka noqonaa cajiinka. dabkaaga mar walba ha ahaado dab hooseeya. sawaayadeena qaybtii hoosna sidaanay noogu soo baxday. hadda waa diyaar. waxaa idiin tusi doonaa xabadkeeni labaad, xabadda labaad. kadibna sidaasoo kusoo dhammeyn doonaa 6dii kuus. marow muuqaalka inuu nagu dheeraado. sawaayadeena qaybta hoos way kasoo bislaatay. haddana waxaa gudinaynaa qaybtii kale. qaybtii hoosena sidaas ayay noogu soo baxday. labadan xabaa idiin tusinaa, inta kaleentana saana kusoo dhammayn doona insha allah. waa isku soo laabaneynaa. hagaag asxaabteeda, qadadeeni markii aan soo diyaarsanay sidaan quruxda badan ayay noogu soo baxday. kani waa mooskii lagu cuni lahaa qadada. sidoo kale kani waa ansalaatadii lagu cuni lahaa qadada. tanina waa sawaayadeeni sidaan quruxda badan ayay noogu soo baxday. ujeedaa midka kale way kasii qurux badan tahay. sidaan ayay noogu soo baxday sawaayadeena. kana waa maraqii. sidaas uu qurux badan yahay maraqa ma fiicna inuu biyo ka noqdo. maraqa mar walba waxaa fiican inuu yahay mid adag oo dhicaan yariis aad u sameysay. sidaan u qurux badan yahay. kale wixii qurux badan kale wixii indhaha deeqa uurkana deeqa. kanina waa cabitaankeenii lagu cabi lahaa qadada. sidaan quruxda badan ayuu noogu soo baxay.
cabitaankan wixii aad ka sameeyay insha Allah muuqaal kale idinkaga diyaarinaa markale idin soo gelinaa insha Allah. haddii aad jeceshahay commentiga igu soo qor insha Allah wixii aad ka sameeyay insha Allah. muuqaalkan maanta intaas wuu ku egyahay. haddii aad ka hesho muuqaalkan fadlan like, share, comment insha Allah, subscribe haddii aad tahay marka ugu horeyso soo booqatay channelka. waxaan isku ognahay insha Allah khayr iyo caafimaad. asxaabe inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashiin Nasra Carfaayo idinkaga tagaysa bashbash iyo barwaaqo iyo muuqaal kale oo xiiso leh insha Allah. mac salaama.